الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داود كسر دواد برنامج حساب بدنا ترتك على بورك جناحسية جامعة ذلك السنة كلا بدكون يلا باتن رمضان كريم سور دوادا وحن سيدرون سور دوين يا داود يا شور بينتك كلا دوين كلا صعتها برنامج حساب بدنا ترتك على بورك جناحسية برنامج لقو ترتمي فكرة يا على بورك بدن دور يلا باتن مشروع أو ككلمة جامعة ذا أرضية كشرتها قبل ذلك دمانتود waxaan soo dhaweyn doonaa arday kale oo ka socota jaamacadda Sanaag ee Ceerigaabo oo ku tartamaya barnaamijka mashruuc la yiraahdo Fooxle Product runtii waa waxyaabaha dabiiciga ah ee gobolka Sanaag ka baxa waxaan soo dhaweynayaa ardaydaas halkan yimaadaan mashruucoodana ay bulshada la wadaagaan waxaan jeclaan bulshada la wadaagto magacaaga iyo cidda kala qayb galisa barnaamijka magacaygu waa Maxamed Saalax barnaamijkan u baahda daadihinay yaa kula waday barnaamijka shacbi ila socday in la yiraahdo laakiin waxaan u socday sadarteed muusoo oo kaliya ku yahay waxa tahay magacaaga Maxamed Saalax waxaan ku rajeynayaa inaad guulaysato caawana halkan aad ku qancin doonto barnaamij aadan filayeen xog badan ka haysan halkan aad la timid waxaad haystaa muddo 3 daqiiqo mashruucaaga sidoo uu sameeyay la wadaagi doonto xubnaha guddiga ganacsiga halkan fadhida kadibna su'aalaan ku bilaabi doona bismillaahir rahmaanir rahiim guddida waan salaamayaa dadkana waan salaamayaa waqtigan koobaya si aan macaamiisheeda u qanciyo ilaa macaamiisheedii baa tihiinay mashruucan la soo shirtagay ama aan la soo shirtagay horta waa khayraadkii dalkeena waa natural resource-ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Somaliland siiyay Sanaagna siiyay mashruuca waxa la yiraahdaa geedka muxorka loo yaqaano ayuu ku sal go'an yahay geedka muxorka la yiraahdo oo loo yaqaano fooxa saddex qaybood oo kala baxa oo la yiraahdo muxor madowga iyo muxor cadka iyo muxor labka geedkan mashruucani magaciisa waxa la yiraahdaa Fooxle Product Fooxle waa magaca Product waa waxyaabaha kale ee noo qorsoonay mustaqbalka mashruuca ayaga kaabi doona ee laga heliyo gobolka Sanaag isla markaana macaamiisheeda aanu soo gaarsiin doono geedka foox waa halkan ku sawiran halka ninkaas irmaaneynaya xilliyada aan loo bixin waxa weeyaan xilliga roobka oo kaliya xilliga roobkana risk balaankeega oo ku xusan 1.8 article 3 ayaa page-ka saddexaad ayaa page-ka 12aad ayaa ka eegaysaan mashruuca ayagani waa mashruuc locally aan doonayno inaan kaga shaqeyno dalkoo dhan ku gaarsiino maxaan ku dhahdaa macaamiisheeda qaab online mashruuca ayaga centralkiisu waa Ceerigaabo xarunta fooxa iyo quruxda dalka iyo khayraadka waana markii ugu horeysay dalkeena aan rabno inaynu natural resource-keena maadaama inta badan wax soo dhoofino waxaan maanta dhan halka lagaga hadlayeen ay ahaayeen wax duni kale inoo soo waarido inaan markan inagu mashruuceenan waaridno mustaqbalkana mashruuceenan waa mashruucan doonayna inaan ka dhalino visionkiisa ama goaliskiisa in laga sameeyo herbaliska krimada dhaashiyada beblutionka waana halka sida qorraxdu u cadahay mashruuc ayagu uu cad yahay meesha uu socdo mustaqbalka hadii mashruucaasi yimaadana ay dhici doonto inaynu xarunta Hargeysa ka furno meel aynu ku iibino krimada geedkan laga sameeyo waa kuwa ugu qaalisan dunida haddii meherad labaad mustaqbalka ama aynu helana ama ganacsigeenu koro wuxuu wax laga furi karaa Dubai London cadarada laga sameeyaa waa cadarada ugu qaalisan kullayba qolada halkan joogta waa niman dunida de wax war ka haya waxaan ku soo koobayaa mashruucaasi waa mashruuc wadankeenu u baahan yahay dakhliga anagu aanu sameeynaa waxaan dhignay meheradaha magaalooyinka dadka noo imanaya maadaama wadadii noo dhamaatay samples baan u dhignay halkaas ay ka heli doonaan waxaan kaloo dakhliga ku sameyn doonaa isagana caasimadda wixii naga soo dalbada oo runtii aad noo weydiisa fooxa inuu soo gaari doono si dhaqsi ah 24 saacadood baska uu ka xigo waxaan kaloo dakhliga ka heli doonaa meel kasta oo qof kasta oo company ah oo naga doonaya tanis assalaamu calaykum saabka hotuma Maxamed Saalax rageedka marka la baariminayo waxa la sameeyo la dalooliyaa mise wala jeexaa si uu soo uga soo baxo dhacaankii mashruuca geedka markiisa hore marka roobka la arko looma baxo inta roobka ka horeysa la sii sarsaraa si marka xabagtii uu sameeyo soo baxdo aad baad u mahadsan tahay waxaan eegi doonaa xubnaha guddiga bal mashruuca soo bandhigtay iyo qiimeynta hore ballan ku siyaan istifaacaagii hadhow saad ganacsi uga dhageysiyo sidoo iibsameeyay iyo faa'iidada waddanka ku soo kordhay dakhliga aad ka sameyn doonto
barnaamijka qaybtiisa dambe ku eegi doonaa cabdiraxmaan cali xirsi marka koowaad ninkaas sanaha ka yimi Erigaabo waan salaamayaa waan hambalyeynayaa waan u ducaynayaa in businesskaasi oo runtii ah khayraadka dalka iyo waxyaabaha aan leenahay ganacsi kasta oo ku salaysani uu ka qiimo badan yahay ganacsi kasta oo aan ku salaysnayn waxa khayraadka waddankeena waan eegi doonaa istifaaciisa laakiin waxaan ugu bilaabay 60 tahay cabdi iswar marka koowaad aad baan u soo dhaweynayaa waanan ka xumahay in saaxiibkiyo la difaaci lahaa oo ka xanuunsaday ilaahay caafiyo marka xiga barnaamijkan fooxa ee aad soo bandhigtay kulley maaha barnaamij hawl yar competition badan iyo challenges badanna way ku jiraan laakiin sida aad u soo diyaarisay oo runtii si aad u qurux badana macquula caqligal ah waxaan siinayaa 550 waa tahay ismaaciil maxamed oo meel fog ka yimiday waan salaamayaa waxaan isleeyahay wejigan hore 60% baan la qabaa aad baad u mahadsantihiin maxamed waxaan rajaynayaa dhibcaha lagu siiyana waxba lagaala noqon oo intaa kasii badan doonta haddii ilaahay inagu simo oo difaacata halka waxa fadhiya ganacsataa fadhida waxay eegi doonaa sida wuxuu iibinaysiiyo faa'iidada ka soo galaysiiyo nidaamkaad u maamushay iyo project aad soo gudbisatay intaba cabdiraxmaan maxamed saalax ma ujeedaa waxaan halkan idiisu kala baxay adiga guddiga 10 daqiiqaad haysataa waan kuu bilaabayaa cabdi yusuf baan ku bilaabaya waay hay cabdi soo dhow su'aashan ku weydiinaya waxa weeye tusaale ahaan anoo ah qof lacag haysta adiguna aad fikirkan haysato ayaad ii soo bandhigtay barnaamijkan waxaan doonayaa inaan ku qanco in barnaamijkani uu qurux badan yaho waa khayraadkii dalkeenna waa arrin noocana waxaasaa laga samaynaya waa udugii waxaa waan garanayaa laakiin lacag doon baan ahay inaan faa'iidaan doonaya lacagna waan maalgelinayaa maalgashi baan kugu samaynayaa bal iga dhaadhici anigoo cabdiya imika iga iibi siduu profitable u yahay goormaynu ka faa'iidaynaa ganacsigan khasaare intee leeg baa laga yaabaa inaynu gallo bal qanciyo waxaad igu qancisaa businesskan inaynu wax ka faa'iidayno profitable yahay aad baad mahadsan tahay waa laba su'aalood oo saaran runtiina labada su'aalood ee laga eego mashruuc marka la rabo in la hirgeliyo ta koowaad riskiga mashruuceena horta riskigiisu waa zero riski marka zero riski yahay articleka waaniga idiin sheegay riski balaankeyga ku jira waxa weeyaan xilliga roobabka oo keliya ayuunbaynaan alaabta fooxeeni aynaan soo gurayn laakiin xilliga fooxeenu wuxuu haystaa ilal kala duwan maadaama suuq horle aanu hore u helin isla markaana inta u badan laga ganacsado maydiga oo la dhoofiyo innaguna aynu ka ganacsanayno nidaam cusub oo loo kala waxa uu aynu samayn doonaa inuu mashruuceenu leeyahay maxaan ku dhahdaa inuu kayd yeelanayo inuu yahay mid mar kasta available kaam kasta oo gobolka Sanaagna aynu kaga soo helayno qiimaha xaashida u dambaysa haddaad eegto waa qiimaha ugu sarreeya in laga siinayo qiimo ka hooseeya in laga siinayo taasi waa taa waxyaabaha faa'iidada marka aynaan waxba ka samayn oo mashruucu meesha aan ugu doonayno inaan hadhow mustaqbalka uu meesha aan ku soconno ah si looga maarmo kiriimadan iyo waxaynaan garanayn inaynu isku duugayno inaynu inagu adduunka la tartanno kiriimadeenna aynu mustaqbalka ka samayno cadaradeenna ka samayno marka laga reebo si aynu waddada u gaadhno haddii aad igula shuraakoobaysid kow haddii aynu maalintii keliya Erigaabo waddadii way dhammaatay dalxiisayaal baa yimaada qof kastoo yimaada iyo qof kastoo qof yaqaana wuxuu jecel yahay wuxuu soo codsadaa foox waa qodob qof kasta wuxuu raadinayaa inuu fooxa helo fooxa Erigaabo gudaheeda ka maxaan ku dhahdaa fooxlabka la yiraahdo waa $7 gudaheeda markaad Erigaabo joogto qiimaha aynu siisanaana waa qiimo $3 horta faa'iidada inoo saaran waad aragtaa haddaan 10 iibino xabo oo kaliya ah maalintii haddaan 10 xabo oo kaliya iibino
ayaan waxaanu haysanaa maalintii maxaanu helaynaa $30 baynu helaynaa haddii bishii aynu 10 ku dhufanno maxaynu helaynaa 300 soo maaha haddii 30 kiilo aynu iibino 30 macmiil oo hoteeladii ku soo degay oo maxaan ku dhahdaayay fadhiya sambuliskiina hoteeladii ku arkay inala soo hadlay marketing strategy-geenu aad u sareeyo oo inala soo hadlo wuxuu inaga qaadan karaa halkii qof 3 kiilo ayuu ugu yaraan inaga qaadan karaa ama 2 kiilo sidaa darteed 30 qof baa maalintii wax inaga iibsan karaa ceergaabo waxaan ku arkaa dad badan oo iyaguna kooxa iibinaya dumar meelo bakhaara ah waxaan inaga inoo gaar maaha markaan intaasoo lacaga maalgelinayana faa'iidadu way yar tahay imanka saan u arkayo markaa ma wax kale oo weyn baad soo wadaa aniga intan way ugu yar tahay walaal waa sax hadda tusaale waxaan ku siiyey hal mid kan kale cad waxa weeyaan qiimihiisu waa $12 marka lafiisa laga jaro waa $5 $6 baa adiga inoo saaran haddii la iibiyo 30 kiilo oo isaga ah oo 30 lagu dhufto waa 900 haddii lagu dhufto 11 waa 9,900 oo dollar haddii laga jaro lafaha waa 4,500 lafihiisu waxaynu faa'iideynaa 5,400 oo dollar bishii waa ka cad isagana marka qaybta online-ka ah aynu hargeysa wax kaga iibinayno de islaamuhu weli may gaadhin qaybta hudheelada macaamiishana maxaan ku dhahdaayey ma yaalaan waay maxamed aad baan runtii ku salaamayaa qodobkayga koobaad aan raba inaan ku weydiiya waxa weeye yaa kula tartamaya adiga qofkii la socday soma may suuqa yaa tartan kugula jira horta loo kidh hadda suuqaygan cusub marka loo eego cid igula tartamaysaa ma jirto oo ma hadda guridda fooxa hadda la bilaabaya haddaan bilaabayaa inaan bilaabo barnaamijkaas cid kale ku shaqaysaa soo ma jirto de fooxa qaybta ceergaabo ku iibinaysa ee aan hargeysada xiriirkii hargeysa hayn le qofka hargeysa wuxuu doonayaa inuu fooxda hele ayaan anigu kaga dheeraynaya insha allah marka cid kale oo ceergaabo gudaheega intay soo gurto ama soo iibsato iibisaa miyay jirtaa mise ma jirto oo keligaaba qaybtaas may way jirtaa fooxa magaalada ku iibisaa laakiin istaraatiijiyadda inagu aan wax ku iibinayno ayaa waxay tahay laba ka duwan mid waa hoteelada macaamiishu ku soo degaan oo saambaliskeena yaallo adeeg yaallo isla markaana macaamiisha timaada ay helayaan midna waa online-ka iyo gobollada kale intaa waad inoo sheegtee dadka hadda ka soo iibiya magaalada gudaheegu hoteelada ma geeyaan miya ma geeyaan marka adaa bilaabaya anaa bilaabaya inaan macmiilka qariibka ugaadhsado taasoo qodobka xiga bal waxaad soo koobtaa maxaa bishii income-ka waad sheegtay oo ilaa 300 meelahaasaad ku tilmaantay maxaa kharashaad baxaya oo wadida ganacsigana walaal xaashida kharashka u dambaysa soo saar korka ma ka sheegi kartaa ha waan sheegi karaa aniga oo ownerkii ah xaashida u dambaysa waxa ku qoran inaan anagu mushahar leenahay oo shaqadiina qabanayno admin administration and finance kuna uu mushahar leeyahay warqadda u dambaysa budget balaankayga sidaa darteed mashruuca ayagan waxa laga yaabaa haddii uu bilowgaba socon waayo inuu $170 keliya $150 oo kirada ah 25 leydhka ah iyo 25 internetka aan doonayno online-ka inaan wax ku iibino keliya inay naga bixi karaan waa haddii aanu maba waayana macaamiisheeda inay dhacdo weeye taasi marka trading cost-kaygu aad buu u yaryahay miyaanay dhicin waqtiyada qaar ina socodku uu iska kooban yaho hoteelada hargeysa waqti waxaa jirta aana dad degaayaana jirine ceergaabo xagga waqtiyada qaar ay dadka imanaya yar yihiin maanay jirin yaa markaa macmiil noqonaya walaal markaa waxaa noqonayaa iminka macaamiisha ceergaabo dee macaamiil baa ka filaynaa fara badan masaajidaa ku yaala goobaa ku yaala waxaa ku yaala meheradaa ku yaala anigu waxaasoo dhan waan la qaadqaadanayaa sidaa darteed waa magaalo weyn oo tuulo ma joogo waxaan kuu soo qaadanay waa sangaabto 10 kiilo iyo 30 kiilo baan kaaga bilaabay laakiin marketka aan samaynayno iyo istaraatiijiyadda siyaadan samaynay waxa laga yaabaa in 900 kiilo iibin karno iyo 600 kiilo mar labaad baan ku hambaleynayaa su-aasha anigoo sii daba socda saaxiibaday ganacsigaaga waxaan u fahmay inaad fooxa ka soo iibsanayso dadka soo gooya
oo dabadeetana aanad meherad furanahayn korka ku qaadayso ama gaadhiba waxa doonto dabeetana meheradaha hudheelada iyo masaajidda iyo meelaha dadka laga ugaarsanaya aad maaragtay so intee buu leekaan karaa yacni macmiilkaagu markaad ugu badan tahay maxaad filaysaa inay bishii dad intee fara leeg inay kaa iibsan doonaan horta walaal meheradu way dhisan tahay waa aniga budget balaanka ku daray $150 ayaa meherada waa 2 meheradood haddii laga reebana $200 baa kuugu yaala budget balaanka xaashida u dambaysa xaashida ku xigta qaybta dhexe weliba ka eg sidaa darteed meheradaas waa 5 taraalka laga hagayo kombiyuutarku yaallo qaybta online-ka iyo qaybta saliskaba qofka socotada ee noo yimaadaana uu ka iibsanayo qofka maxaan ku dhahdaayey hudheelka tagaana maxaan ku dhahdaayey sambuliska markuu arko contact addresskayga uu soo wacayo loogu geenayo su-aasha aan ku noqdo maxaad kaga duwan tihiin ceergaabo waan tegi jiray in badan waxa ugu badan ee aan ka soo qaadi jiray ama hadiyadda ugu qaalisanay koox bay ahayd waa run waa wax ilaahay meesha dhigay laakiin intaasoo meheradood baan garanayaa oo aanu kala xulan jirnay oo maalinba mid xataa mararka qaarkood buurta maaragtay magaalo maaragtay tuulayaasha ku yaala ayaa maaragtay markaanu soo marraan ka soo iibsan jirnay isagoo imika la soo jaray faresha adigu maxaa yacni alaabtaada ama fooxaaga ka duwaya fooxyada dadka kale waxa ka duwaya saambulka labadan horta qaabkan uu u diyaarsanaan doonaa haddii aad soo iibsatay noocaas waxaad tiraahdaa kagama duwani qaybta aan muurgaraynta horta waan kaga duwannahay qaab hadiyadeed baa loo qaadan karaa oo wuxuu u geli karaa qaab hadiyadeed waad aragtaa magacayaygii baa ku yaalla contact addresskaygii baa ku yaalla contact addresskaas wuxuu noo suurto gelinayaa fooxaagan haddii guriga xataa lagu arko in annaga nala soo wici karo customerka la ku heli karo waa qodob aad u wanaagsan yani inaad u samaynaysaan gal wanaagsan laakiin galka laftiisa oo lacag idinkuba taagan budgetka markii yar aan kuu dhammaystiro adigoo tusaale ahaan oo kale waxaan kaa iibsanayaa 1 kiilo halkii kiilo markaan kaa iibsanayo waxaad tiri waxaa laga soo siinayaa $3 anna waxaan siinayaa $7 markaa package-ka iyo qofka ka soo qaaday tuuladii bahalka laga soo sameeyey iyo bakhaarkii lagu ilaaliyey iyo maaragtay markaad qarashka isku darto 1 kiilo kharashka adiga kaaga baxaya waa imisa horta walaal sida xaashadeeda noogu qoran budget balaanka waan ka kaaftoomaynaa printerkii baa noogu qoran sameynaya waraaqdan iminka saambuladaan u soo qaatay haddaan guulaysano weeye bacahana waan ku soo qoray qiimahooda oo qiimaha ay ku qoran yihiin waa bacaha aad u yar bacdan yaraan bacdanna letter ma ku moorgarayn karaayo ama maxaa la odhan jiray ama shamac isaguna waan ka maarmi karaa haddii qalab aan u baahdo marka mashruucaygu waa zero cost waa markii labaad zero isticmaasho ma ogtid zero risk iyo zero cost businesska wax zero risk la yidhaha ma jiro business aan risk lahayn yani ganacsi aan risk lahayn ma jiro khatar ganacsi aan ku jirin khatarta ugu yar waxa weeye meheradii waad furtay alaabtiina waad keentay cidiba way ku iman weyday ilaan dadku qasab ma aha ma ogtay inaadeen ay ku yimaadaan so inta ugu yari waa inay cidiba ku iman weydo marka maxaad u tidhi zero cost ama zero risk because shamaca waa lagaa soo iibinayaa bacda waa lagaa iibinayaa warqadda aad daabacayseed printerka ku daabacaysa waa lagaa iibinayaa khadka soo saaraya waa lagaa iibinayaa warqadda weliba waa inay golossi iyo bahal adagoo maaragtay qurux badan noqota la rabaayo way ka sii qaalisantahay kuwii kale maxaa zero ka dhigay maad realistic evaluation ama qiimayn sax samaysid sax walaal horta inuu ganacsigu leeyahay riskigu waan ugu soo talagalnaba mashruucayaga haddaad aragto budget balaanka lacagta u dambaysa warqadda qaybta u dambaysa budgetkaygu wuxuu ku fadhiyaa $7,000 xagga u dambaysana $1,000 oo reserve ayaa ku jira soo sax maaha soo ma aragtid qaybtaasi kunkaasi wuxuu noqon karaa inuu noqdo kun badeecad kale dhaqaajiya oo lacag kale malab laga samayn karo malmal laga keeni karo meheradoo dhan isku wadi kara lacag samayn kara ha yaraysa kunka halka aan gelinay
qodobka kale marka loo eego mashaariicda kale waxaan u leeyahay sirokos wax dadka ila tartamay ila dad baa la tartamaya Soomaa marka la eego dadka ila tartamay oo dhan mashruucaygaasi waa mashruuca kaliya ee caawa aad maxaan ku rahdaayay panelka u fadhido ee ka qiimo yar baan kuwa kale aad baad u mahadsan aad buu mahadsan maxamed saalax waxaan u rajaynayaa inuu guuleysto arday badan baa qosliso oo madasha nala fadhiya waan u mahadnaqayaa ardayda qiimaha badan leh halkan fadhida maxamed saalax istifaac baad halkan samaysay maarkis hore far badan baad heshay waxaan kuu rajaynayaa dhibcahaas inaan waxba kaa goyn oo ganacsado waxba aanay kaala noqon haddii iyagu waxaynan arkayn ay arkayaan oo dee iyaga inoo khibrad badan wixii waxaan kuu rajaynayaa xubnaha ganacsatada halkan fadhiya ismaaciil macaad baan markan ka bilaabaya ismaaciil markii hore waxaad bixisay 60% istifaacii maxamed saalax iyo ganacsigiisa habkuu mamulay maxaa kaaga baxay maxaad kordhinaysaa maxaad ka dhimaysaa runtii aad baan u salaamayaa waxaan ku soo koobi lahaa nambaraa muhiima marka dhinac ganacsi ka eegayso inay iswaafaqaan nambaradii aniga uu qiimeynayo the guidelines la siiyay ku fariisinaya 5 dhibcood baan ka jari lahaa waa tahay cabdi yuusuf 60 waa tahay cabdiraxmaan anigoo kula talinaya inuu xisaabaad dambe galo oo uu businesska horta waa business runtii suurtagala oo ay fududahay in la fulin karo oo ma aha hadduu imika uu oranayo technically aniga beeri tegayo oo maaragtay waxay noqon lahayd wax culus laakiin haddii ay tahay trade iska fudud inuu si fiican u xisaabtamo sida Ismaaciil sheegay ayaan runtii kula talin lahaa waxaan ugu daray 5 waa tahay aad baad mahadsantihiin maxamed saalax sacabka u tuma ila sii dhaweyn maxamed yuusuf daawadaalintaas waxaan ku soo gabagabeynaa qayb ka mid ah wareegga saddexaad oo ay ku tartamayeen jaamacado kala duwan tiimkan iyo kooxdan tartamina waxaan u rajaynayaa inay guuleystaan isla markaasina ka soo dhex baxaan saaxiibadooda kale barnaamij kale oo kala mid ah kunta kulma dhamaantiin ku dhaafnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaal safarkaygii turkiga saacadaa ka hadhay lacagta intaa leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan kuu sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefanka carruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalay sodagii ilbaxa ahaa si kaa noqotay maanta had maa laga tegay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag lagaa soo daba dira iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu hawlay soo tan Premier Bank noqotay hawl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolaha ku daba sidaysaa oo aan koon baaba ku leeyahay lacagtaan dhigtay ma iyaga iga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiyaa Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel